السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قبل الكينا بشكل بشير وإذا له وصل هذا يوتيوب channel كيها كل إنسان يقبرتين مرة برضه هنجعل إن هذه صوب النجاو وحياة بالشرف فيدوله ما أنتوا حاربة إن كان الله أفضل قضاء مهمة لا يرى أدنو مهمة سوى كله رجعنا الصومالي ده أدنو مهمة استيلا مرة بدنا نقول كده لا يرى أنا ولا سنين مرك إن كان الله يرى مانت haddii aad maanta hore u samayn jirtay 40 qodob ama aad hore ahayd haddii aad maanta daawato videogan iska ilaali ha sameynin waayo intaas ragga waa ka mamnuuc mid ugu horeyso aan badanaa horta aan ku arkay dhalinyarada iminka jiro waxay arkaysaa inay suniyaasha ay qoraan ay line iyo wax u sameeyaan horta sideedaba horta ma fiicno sunniyahan in la qoro sidoo ay ku qurux badan yihiin marka iska ilaali rag iyo dumar midna uma fiicno in sunniyaha la qoro ama leen loo sameeyo horta dumarku ma arag badana laakiin rag ayaa waxaan ku arkay leen iyo inay xariiqmo u sameynayaan marka waa arin aad u farxumo ah marka iska ilaali isteel lama quruxna ma wax ay soo jiidanaysan ma garaneen mid labaad inaad xirato katiinad qoortaada katiinad aad qoorta gashatay maxay soo kordhinaysaa hadda baliisha katiinad sideedaba ninka ragga looguma talgelin inuu qoortiisa xirto waxaa loogu talgelay kaliya dumarka inay qoorta wax ku xirtaan ninka ragga ah waa ka mamnuuc isteelka xitaa kuma jirto yacni gaala waa goonidooda ay diintoodii waxay qabto gooni anaga diinteena muslimka ma ogola in katiinad qoorta la xirto sideedana ma qurux badnaba ninka ragga kuma qurux badna inuu katiinad qoorta xirto marka iyadana iska ilaali isteel ma quruxna ma waxay soo kordhinaysaa malaha xiran katiinad qoortaada midda saddexaad ayadana inaad duruto dhigaha ama bir la saarto jirta inaad saarato ayadana iska ilaali waayo wax qurux ama lahan katiinad iyo dheg la duranayo waxaa loogu talgalay waa dumarka ninka ragga ah waxaas waa ka mamnuuc isteelna maba haba wax isteel oo soo kordhinaysa oo quruxna ma jirto dheg la durtay iyo katiinad la xirtay waa mid saddexaad midda afaraad inaad jirkaaga tattoo marsatid oo wax oo aad ku qortid magacaaga ama magac qof kala jeceshahay ama waxaad arkaysaa dad waxay ku qoranayaan ama qof uu jecel yahay ama caruurtiisa mid kamid ah inuu ku dhajisto sawirkeeda oo tattoo ahaan u samaysto taas waxa ma soo kordhinaysa jirkaaga waxaa loogu talagalay inuu clean ahaado sidiisa ahaado tattoo-guna sidoo kale waaba dhib waxyaabo badan oo effect ay leeyihiin waayo waa sun xitaa qof tattoo leh badanaa dhiiggiisa uu samaysan yahay haddii lacala loo baahdo inuu qof dhiig ku caawiyo lama isticmaali karo marka afartaas qodob ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago marka afartaas iska ilaali haddii aad doonaysid isteelka sidiisa horta way ayuu leeyahay haddii laakiin weygiisa aad ka leexiso wax walba aad samayso waa isteel ahaan anaga diinaan celinaysa isteelka dad muslimiin aan ah adoo isteelkaagana quruxsanayo jirkaaga dharkaaga kuu quruxsan yahay laakiin waxyaabaha qaar iska ilaali diintana kuwa ogoleen aana wanaagsaneenba oo ninka raggana u wanaagsaneen marka I hope inaad ka hesheen sidoo kale haddii aad ku cusub tahay youtube channelkayga ha iloow inaad subscribe garayso instagramkaygana iga soo follow garay bashka 7 wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh peace and love